qaato horgal wuxuu ku noqday oo ku noqday argagixis Cabdisaaq Khaliif markuu shacabkiisii iyo dadkiisii la dareen qaatay ma wuxuu rabay Cabdisaaq Khaliif waxay rabeen SLM min uu qasto sharaabada uu kariyo dharyaha waxay rabeen hogaanka waxay ku noqdeen ismadayadu markay shacabkayagii laba isku qabsiiyeen oo dadka dareemadoodii dareenkooda dadka u soo jeesteen ba hogaanka waxay loo namaya ana hogaanka waxay ma nihin hogaanka waxay SLM ba halkan waxaan ku soo fiirinaa dad ka hadlaya kooxda SLM la dhaho waxay dhaheen argagixisaatiin anagu argagixisamiin argagixisamiin 15 sano ay haysteen musujuudan wadanka uu haystay baan argagixisan noqonay miya isaga argagixisa isaga dadka iga xasuuqay isaga dadka iga laayay heer waxay gaadheen haleeyadeedii wadada lagu dilo albaabada lagu laayo albaabka hadii la furo waa la laayaa iyaga laaya dadka iyaga cid kale ma layn haliyada isaga cunay markuu ragayga dhameeyay ee koox isugu diray dadkii ee isqabasiyay wuxuu caalamka wuxuu bandhigay argagixisamin argagixisa hadaan nahay maxaan isaga u diri weynay maxaan u leen weynay waxa isaga argagixisa isaga dadka laaya garaadadeedu way yimaadeen magaalada way soo galeen shir bay ku qabsanayeen dadka wadanka deegaanka u dhashay baa haayeen wuxuu yiri argagixisu shirki oo noo socda oo dadkii loo shirayo ba waxay sameeyeen kooxda SLM inay hobyaal ku garaacaan magaaladii dadka inay laayaan shacabka inay xasuuqaan hobyaal ku garaacaan magaaladii waa laga qaxay magaaladii iyaga qaxiyo dadkii iyaga barakiciyay hooyooyin ba gurigood hobyo ku garaacay caalamkan u bandhiganaa dadweynahan u sheeganaa inuu isagu dadka hobyo ku garaacay inuu shacabkii xasuuqay inuu dadkii laayay waxaan kaloo halkan ugu hambalyeynaya Cabdisaaq Khaliif Axmed garaadadii iyo ismadii iyo goboladii SSC oo arkay shacabkii la dareen noqday hambalyaanu leenahay hambalyo anaga Cabdisaaq Khaliif dooranay hambalyo anaga Cabdisaaq Khaliif dooranay Cabdisaaq Khaliif anaga dooranay anaga soo saaranay waxaan u soo saaranay u dooranay adduunka isbedel inuu ku sameeyo dadkiisa inuu la dareen qaato horgal wuxuu ku noqday oo ku noqday argagixis Cabdisaaq Khaliif markuu shacabkiisii iyo dadkiisii la dareen qaatay ma wuxuu rabay Cabdisaaq Khaliif waxay rabeen SLM min uu qasto sharaabada uu kariyo dharyaha waxay rabeen argagixis من هنا نقول قادم ويعبد خليف طريقن بولا قاتي dadkiisi طريقن بولا yeeshay gabadh baa waxay ka hadashay meesha la dhaho in Hargeysa gabadhaas waxay jooga Hargeysa lascaanood hogaan kooxeed yada ah dadka Soomaaliland u shaqeeya hogaan kooxeed waxay ku noqdeen ismadayadu markay shacabkayagii laba isku qabsiiyeen oo dadka dareemadoodii dareenkooda dadka u soo jeesteen ba hogaan kooxeed loo namaya ana hogaan kooxeed ma nihin hogaan kooxeed SLM ba iyo waxa la socda iyo waxa shabaha iyo waxa Hargeysa si fadhiya kuwaas hogaan kooxeeda musujuudan waxaan leeyahay gobolada SSC way kaaga dhamaatay iyo dhulbahantiya daaroodba ka socotay baan ku wuri taas waa ka dhamaatay intii aad xasuuqdeed laysay 15 sanad gobolka haysad intii aad xasuuqday hore la yaabana afro maan kala laga xisaabtamaya waana laga jaraya adduunka hadan laga jina akhra laga jaraya laakiin dadka dareenkiisa iyo shucuurtiisa cidna ma hortaagi karto cidna ma cirin karto shucuurteena ku taaganahay galabta halkan aan ugu hambalyeeyay garaadadeeda guulahay noo soo hooyeen inta hadhana waxaan leeyahay garaadadeedu ina dhameystiraan yar ba hadhay guushi yar ba ka hadhay intii kala rajaynay